degmada ceegaag oo ka tirsan gobolka Cayn oo 5 sano ee soo dhaaftay ka soconayeen mashaariico kala duwan ayaa degmadaasi ceegaag haatan waxaa laga hirgeliyay mashaariico dhinacyada horumarinta guryaha waxbarashada caafimaadka iyo waliba biyaha maanta ayaa degmada ceegaag waxaa laga dhagax dhigay goob ballaaran oo lagu talagalay in laga dhigo maxad islaamiga laga furi doono masaajid iyo waliba malcaamad waxaana ugu horeyn markii dhagax la dhigay madashaasi ka hadlay Axmed Cabdi Cawad Axmed Koofiyad Ibrahim Yuusuf Ismaaciil oo maamulaha shirkadda xawaalad tawakkalaanteeda Buuhoodle Ali Cabdi Ciise oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Talasom ee Buuhoodle waa meeshii loo iibiyay ee loogu talagalay ee qaybna loo bixiyay inay noqoto macad islaamiya iyo malcaamado iyo masaajid intaba waa meesha aan doonaynaa in mustaqbalka ay noqoto inay ka soo baxaan daaciyaal iyo dhalinyaro yaryar oo u fircoon waxbarashada meeshan waxaa iibiyey rag dhalinyaro ah oo dalka iyo dibadda kala jooga iyo hablaba ayaa iibiyey qayb ka midana waxaa bixiyey oo waqfay dadka deegaanka u dhashay magaalada ee jooga ayaa bixiyey rag ka mida marka waxaan u baahannahay sidii aynu uga sii qayb qaadan lahayn dhismihiisa iyo waxqabadkiisa inaynu dhammaystiro ka masaajid ahaan ka macad ahaan ka malcaamad ahaan iyo wixii kale ee uu u baahan yahayba waana ka baxay wabilaahi tawfiiq alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahuma calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam horta warbixintu waa inta axmed uu sheegay wax saasa ku kordhin maayo dhulkan oo ah 4 baloodh uu yahay waqaf ay waqfeen rag deegaanka u dhashay 3 kalena la iibiyey oo ay iibiyeen dad iyaguna deegaanka u dhashay oo qurba joog iyo dad gudaha joogaba leh waxaa loogu talagalay inta axmed uu sheego oo ah masaajid maxad iyo malcaamado insha allahu tacaala maanta laga bilaabana waxaan rabnaa inay bilaabmaan ugu yaraan 2 qol oo malcaamada ah wixii kale ee ku sii xigana tartiib marba sidii magaranaysaa hawsha ay tahay ama dhaqaale loo helo inay u socoto dadka magaalada u dhashay meel kastaba ha joogaane iyo dadka islaamkaaba waxaanu codsi u gudbinaynaa inay gacan ka geystaan howlaha khayriga ee masaajidka iyo maxadada iyo malcaamadaha isugu jira iyadoo horey uga jireen maxado iyo malcaamado iyo masaajido intaba magaalada hase ahaatee magaaladu ay kortay ayna qaadi weyday dadkii wax ku bara jiray ama ku cibaadaysan jiray dad badan oo hadda wax dhigto oo dad yaryar iyo dad waaweyn bale ay guryo dad leeyihiin iyo kirooyin wax ku bartaan taasna la rabo in laga kafaalo qaado ka islaamka ee khayraadka jecel waa meelihii lagu bixin jiray ilaahay loogu dhowaan jiray waxaanu idinka codsanaynaa oo si islaamnimo leh walaalnimo leh idinka codsanaynaa in qof waliba wixii uu ka geysan karo ka geysto baahi weyn baa loo qabaa oo degdega dadkii imika waxay ku jiraan oo wax ku dhigtaan malcaamado iyo maxadiyo kiraa waxaanu aad idinka codsanaynaa inaad wixii aad una awoodi kartaan wixii qofkii wax awoodi kara islaamihiiba inuu wuxuu awoodi karo nagu kaalmeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi gabagabadiina waxaa hadalka qaatay oo baxay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka ceegaag oo ay ka mid yihiin Ibrahim Axmed Dabagooye Cabdi Jaamac Dabagooye iyo waliba maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada ceegaag Cabdi Qani Macalin Faarax oo sheegay inay soo dhawaanayaan mashaariic isugu jirta maxadka islaamiga masaajidka iyo waliba malcaamadaha ee maanta laga dhex dhigay degmada ceegaag waxaan salaamayaa qodii kasta oo islaam oo hadalka maqlaysa ama arkaysa magaalada ceegaag baa la yiraahdaa waa magaalo cusub waa magaalo weyn oo fara badan baahideedii waxbarashada ama iskuul ama masaajid aad baa loogu baahan yahay dadka islaamka qolyihii hore dhameeyay hadalka dadka islaamka waxaanu ka codsanaynaa iyo jaaliyada iyo dawladaha jirta inay sida ugu dhaqsaha badan looga caawiyaan si fiican oo aad iyo dadaaleyna nooga caawiyaan baanu dadka islaamka iyo jaaliyadaha ka codsanaynaa waxaan aad iyo aad u codsanaynaa maadaama aan nahay waxgaradkii degmada ceegaag walaalahayga dibadda jira
inay naga caawiyaan ee islaamka ah waa dan weyn weeye waa meel aan la kala xigin waa meel waqaf lagu dhisayo waa meel yacniga lagu bixiyey waxaan aad iyo aad u codsanaynaa in nalaga taakuleeyo qof walba oo islaamana waa u dan weynna waa u qabnaa magaaladu waa magaalo weyn oo ballaaran markaa masaajidka iyo malcaamadaha iyo macdiyada wixii ay nooga deeqdo waxaanu codsanaynaa walaalahayaga dibadda jira in nalaga caawiyo maxamed waali wasaxbi ajmaciin wabacdu sida odayaashu idiin sheegeen iyo ragga odayaashii hawsha waa sidaas muhiimadduna waxay tahay magaaladu aad bay u ballaaratay masaajiddo fara badan bay u baahatay oo kii hore ka badan malcaamadihii waa bateen tiraba hadda waxaan ogahay malcaamadaha buuxbuuxa ee weliba dadku ay dhigtaan da'yartu dumarkuna ay dhigtaan ilaa 5 inay gaarayaan intii waagi hore la sameeyey oo 2 qol meelaha ahayd waa iska buuxsantay intii kale ayaa ka tanbadatay ardayda marka hadda waxaan ku haynaa dhul kira ah oo qaarkood sanbaqado kulayna ay yihiin oo sida wax loogu fahmo ama wax lagu dhigtay adag tahay oo halkan iyo sida la idiin sheegay weeye hadafku ardaduna magaalada wax baranaysaa aad iyo aad bay u badan yihiin ilaa ardada ka howlgasha iskuullada iyo malcaamadaha dhigta ilaa 300 ayay ardadu gaarayaan marka dhul waaweyn dhul fara badan malcaamadihii waxbarashada heerka sare aad iyo aad baa loogu baahan yahay baahidana waxa deer taagan weeye oo aan la dib dhigi karin saa darteed waana sii bilaabaynaa wixii naga dhinaada iyo taabaqaadkeeda iyo garabgalkeedana dadka muslimiinta ah ayaan ka codsanaya nagala qayb qaataan billahi tawfiiq ugu dambeyntiina degmada ceegaag oo la aasaasay muddo haatan laga joogo 6 sano ka hor ayaa waxaa degmada ceegaag ka howlgalay mashaariico isugu jirta dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo biyaha waxaana degmada ceegaag ay leedahay 2 dugsi hoose dhexe iyadoo dugsiga koobaad ku yaalo magaalada Soke iyadoo dugsiga labaadna ku yaalo magaalada labaad ee ceegaag inkastoo magaaladaasi aanan tagin sidoo kale magaalada waxaa laga hirgeliyay ceel biyada hirgelisay hay'adda MBA ee xarunteedu tahay magaalada Laascaanood ceelkaas dadka deegaanka way si weyn ugu diirsadeen mashaariicahan laga hirgeliyay iminka degmada ceegaag waxay ku soo beegmaysaa iyadoo 16 bisha June lagu wado in magaalada Washington dhaco shir looga hadlayo arrimaha horumarinta degmadaasi ceegaag gaar ahaan waxbarashada caafimaadka iyo waliba biyaha shirkaasi waxaa qabanqaabinaya Ruush aadan xasan sida uu sheegay bahda ceegaag media waxaana shirkaas looga hadlayaa guud ahaanba horumarinta degmadaasi ceegaag علي عثمان السبعار الدكتور شبكة ورقة عالمية عيق ميديا مقالة بوهو اللي حروتها قبل كعين